بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد maanta waxaan halka isugu keen yeeray qorooyinkeena saxaafadda waxa weeye dhowr qodob baan doonayaa inaan soo gudbiyo sidaad ka warqabtaan waxaan ahaa murashax u taagan xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Puntland marka maanta waxaan cadeynayaa waxa weeye murashaxnimadii inaan ka tanaasulay qadarta rabbi baa iska leh sababta igu kaliftay xaqiiqatan waxa weeye markaan wadatashi ballaaran sameeyay istikharo galay ilaahay baryay qaabka doorashada hadda lagu wado ay tahay qaabkii baarlamaanka iyo qabaa'ilka ragga laga soo xuray waxay la muuqatay waxa weeye anoo iimaankayga iyo aakhiradeeda u baqaya qaabka dabcan rag ma garanaysaa xildhibaano ah wadciga keenaya ee duruufta hadda lagu jiro dabcan waxaa la filayaa un kolley ninka murashaxa inuu xoolo bixiyo oo codka wax ka bixiyo aniguna sida laygu yaqaan lacag ma bixiyo cod kuma gato laba goor hore oo aan murashax ahaa doorashooyin galay waxaa lagu yaqiinay inaanan marnaba lacag bixin aan u soo taagnaa isbedel inuu dhaco ummadda inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u toobad keenaan kitaabka qaataan dowlad wanaag samaystaan culayska saaran oo xag rabbi iyo xag kalaba ka taagan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga toobad keenaan oo ilaahay culays ka qaado sidaa awgeed marka anoo intaa tixgelinaya waxaan goostay waxa weeye mar haddii hadda maamulka kan la dhiso kolley waxaa lagu midaysan yahay in xisbiyadii badnaa dib loo asaaso waxaan goostay waxa weeye inaan ka qayb qaato dhaqdhaqaaqa dambe oo xisbiyada ah oo one man one vote-ka ah waqti kastaba ha noqoto inaan naf iyo maalba aan u huro ummaddaydana aan u adeego anigu mar waliba risaaladan wadaa waxa weeye rabbi aanu noqono ilaahay aanu ka baqano shareecada aanu qaadano midnimadayna aynu ilaashano horumar aynu halka ka gaarno horumar ma gaari karro haddaan ilaahay raalli naga ahayn annaguna ma midoobi karro sidaa awgeed marka anoo tixgelinaya arrintaa iyada ah wadatashi ballaarana ka sameeyey go-aankaas ayaan qaatay marka inaan ka tanaasulo tartankii aan ugu socday xagga madaxtinimada Puntland waa jiraan asbaabo kale oo xaqiiqatan aan aada u eegayay oo dhacaya maalmaha kan dambe processka loo soo galay doorashada ma qurux badnayn xaqiiqatan marka si loo eego xagga maamulka hadda jira dhaqaalaha murashaxa markaa joogay maamulka hadda haysta ayaa isticmaalayay dadka uma sirnayn meediyada looma sirna guddiga amniga isagaa isku magacaabay inuu yahay guddoomiye guddigii muxuu ahaytay xalinta khilaafaadka saad ogtihiin isagaa soo magacaabay khilaafaad badan baa la dhex dhigay isimadii aynu magaranaysaa lafdhabarka noo ahaa nasiib darooyin badan baa dhacay amnigii murashaxiinta qaarkood baa khatar la gashay waxaasoo dhan oo magaranaysaa ah provocation iyo ducoducayn iyo ahayd waa dhacday laakiin nasiib wanaag waxa weeye dadka reer Puntland ayaa ku ammaanan inay ma garatay muxuu ahaytay dulqaad muujiyaan inay danta guud eegaan inay isu sabraan inay isu tanaasulaan mahad ilaah baa iska leh ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin waa la isku dayay inuu ma garanaysaa khalkhal badan uu dhaco xag amni iyo xag siyaasadba ummadda reer Puntland oo in muddo ahba xaqiiqatan dhaawacu ku soo gaaray xagga midnimadooda haddana processkii maalmahan dhacayay waxaa muuqatay in muxuu ahaytay loogu talagalay dhaawacaasi inuu sii ballaaraado laakiin fadliga ilaah baa iska leh ilaahay inuu ummaddaasi ka badbaadiyey inay sii kala fogaadaan waxaan u xaqiiqatan u mahad celinayaa oo aan fursaddan aan qaaliga aan muxuu ahaytay aan doonayaa inaan fursadda qaato inaan u mahad celiyo si gaar ah
muxuu ahayd isimadii soo jireenka ahaa ama kuwii kalaba sida ay u muujiyeen biseelka siday u muujiyeen siyaasadeed ehelnimo danta guud in laga eegtay oo muxuu ahayd wixii aan soo aragnay maalmahan dambe oo dhan laga dulqaatay xaqiiqatan biseel baa la muujiyey waana wax aanu ehel u nahay taariikhna u leenahay dadkana ay naga sugayeen ayaad muujiseen marka qodobka isaga ah halkaasaan uga baxayaa waxaan doonayaa waxa weeye qodobka labaad tanaasulkayga waxaan doonayaa inaan murashaxiinta kale qaar ka mida waa wada hadalay oo waxaan isla garanay waxa weeye in xoogga iyo lisu geeyo oo 20 murashax oo isbedel doona suuragal maaha maamulka hadda jira in laga qaado muxuu ahayd xukunka laga wareejiyo iyo danta guud la eegayo marka anigu waxaan qabaa waxa weeye murashaxiinta sidaan u tanaasulay anigu aynu u tanaasulo ragga aan is oran karo hormuud bay u noqon karaan isbedel anigu shakhsiyan 2 nin baan soo sharaxayaa waxa weeye maxamed cabdinuur xirsi weeye maxamed cabdinuur iyo ninka la yiraaho dr cali xaaji warsame labadan nin waxaan u arkay inay yihiin 2 nin oo xaqiiqatan waxa weeye xagga daacadnimo xag akhlaaq islaamnimo xag hawlkarnimo xag ma garanaysaa muxuu ahaa biseelkooda siyaasadeed inay maanta noqon karaan mid ka mid ah xaqiiqatan inuu hoggaan wanaagsan ummadaas u horseedi karo ayaan aaminsanahay inkastoo ragga kale oo dhan aysan ka dhicin oo rag badan oo qiimo leh ay jiraan laakiin kursigu de waa hal weeye dhowr kursi meesha ma yaal waxaan ku talinayaa waxa weeye in xoogga meel la saaro labadan nin waa 2 nin oo xaqiiqatan aan is oran karo haddii aynu xoogga iyaga isugu geyno cabdiraxmaan maxamed faroole retirement baanu gelin karaa si fudud oo wanaagsan baanu u gelin karaa laakiin haddii xoogga iyaga uu magaranaysaa baaho oo uu magaranaysaa nin walba yiraaho roundka labaad baan ugu shubayaa roundka labaad mid adiga gacanta kugu jira maaha waa mid alla ka sokay muxuu ahayd gacanta ugu jira ninka xildhibaanka ah laakiin haddaynu talada meel isugu geyno oo xoogga meel isugu geyno oo labadooda xataa intaanu kala saarno mid aynu xoogga aynu saaro waxaan aaminsanahay isbedel qiimo leh oo tayo leh baa meesha ka dhici kara marka baaqaasna muxuu ahayd waxaan u soo gudbinayaa walaalaha iyo murashaxiinta ah ilaahayna waxaan ka rajeynayaa waxa weeye sida aanu nafteydaba uga qaaday oo walaalkii aan ula jeclaaday idinkuna inaad tanaasushaan oo isu tanaasushaan oo aan xoogga meel isugu geyno ayaan muxuu ahayd arrintaas ka leeyahay qodobka saddexaad iyadana ku soo koobaya waxa weeye baaqan u dirayo xildhibaanada marka hore waa u hambalyeeynaya xildhibaanada Puntland aad baan ugu hambalyeeynaya ilaahay baana subxaanahu wa ta'ala awal baqore oo qadaray inta soo baxday inay noqdaan wixii khilaafaad oo yar oo jirana waxay la tahay markaanu marxaladan ka baxano ayaynu xalin doonaa haddii ilaahay idmo waxaad ku soo dhawaataan mas'uuliyad ilaahay idin gartay oo ilaahay idin kula xisaabtami doono taariikhdu ay idin kula xisaabtami doonto shacabka reer Puntland oo idin kula xisaabtami doono hoggaanka aad dooran doontaan maanta waxa weeye masiirkii ummadaasi gacantiina ayuu ku jiraa oo xisaabta aan sheegay baa ilaahay idin kula xisaabtami doona haddii aad doorataan jecelaysi aad ku doorataan qabiil aad ku doorataan maslaxad kale oo gaar ah oo shakhsi aad ku doorataan de waxa weeye idinkuna waa khasaaraysaan adduun iyo aakhiraba ummadana khasaaro weyn baad u geysanaysaan 5 sano oo dambe oo muxuu ahayd ummadda reer Puntland dhaawac hadda ku yaala midnimadooda dhaawac weyn baa soo garay dhaawacaas waxa dhayaal loo baahan yahay oo isku soo cisha oo dadkii mideeya 5 sano oo dambe oo maamulka hadda jira oo dib ugu soo noqdo de waxa weeye hadda gobol baa loo kala maqan yahay laakiin tuulo iyo qof baa loo kala tagayaa dhaqaale xumada maanta jirta haddii ay dhacdo maamulka hadda jooga inuu soo noqdo de waxay la tahay hadda dhaqaale xumaa jirta oo wari dadku waxba iska cunaan ganacsato badan baa dalkii ka haajirtay de waxay la tahay waxa weeye gacantii afkaar isla waayi doonaa laana waxa weeye waxaan u baahanahay isbedel baan u baahanahay isbedel u horseeda ummadda barwaaqo
waxaan u baahannahay dhiig cusub baan u baahannahay talo cusub baan u baahannahay waxaan u baahannahay mashaariic magaranaysa dalkii in laga fuliyo kalsoonidii ganacsatada ee maanta haajirtay inay soo noqotaan u baahannahay isbedel baa loo baahan yahay xaqiiqatan oo dhinac waliba ah 5 sano oo dambe oo dhaqaale xumo ah oo midnimo la'aan ah oo magaranaysaa gobollada maanta gacanteeda ka maqan sida Sool oo kale inay sii maqnaadaan 5 sano oo dambe waxay keenaysaa gobollo kale inay sii maqnaadaan oo sida Sanaag oo kale inay gacanteeda ka baxdo waxay la tahay waxa weeye 5 sano oo dambe oo khasaare ah ma qaadi karo waxaan u baahannahay xildhibaanka inuu magaranaysaa marka uu codka bixinayo inuu ilaahay xusuusto baan u baahannahay waxaanu ka rabnaa xildhibaanku inuu shacbigiisa maanta waxay ku jiraan iyo waxa uu la jeclaan lahaa khayr ah inuu ku fakaro intuusan magaratay muxuu ahaa codkiisa uusan saxiixin waxay ila tahay waxa weeye berrito waxa la dooranayaa gudoomiyihii magaranaysaa baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa marka hore waxay noqonaysaa xisaabtanka hore barru dhacaya oo la ogaanaya qiimaha aad leedihiin iimaankeenu intuu leeyahay haddii aad doorataan nin isbedel doonka muxuu u heelinaya nin isbedel doonaya nin isbedel keeni kara nin ummadda u horseedi kara cadaalad laana waxa weeye baarlamaanku waxa weeye waa meesha dejinaysa qaanuunka meesha ilaalinaysa xeerka lagu heshiiyay waxa weeye baarlamaanka weeye ma aha madaxweynuhu meesha ummadaas ay ku baraari karaan ku liibaani karaan ama ay ku khasaari karaan waxaan idinka codsanayaa waxa weeye oo idinku baaqayaa in aad muxuu ahayte berrito doorashada aad samaynaysaan oo gudoomiyaha iyo gudoonka aad dooranaysaan in ay ka muuqato inaad tihiin dad bisil dad magaras ilaahay ka baqaya dad u naxariisanaya ummadooda dad heegan u ah oo u heelan isbedel dhaba inuu ka dhaco Puntland hebel doorteeda oran mayo dadka idinka iga badiya gudoonka dadka u taagan waxaan ogaan doonaa waa berrito saxiixiinu berri ayuu noqonayaa midka lagu kalsoonaan karo ama midka aan lagu kalsoonaan karin marka ilaahay tawfiiqda haydin waafajiyo ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ummadaasi aad u noqotaan kuwii horseedi lahaa khayrka ugu dambeyn waxaan ku soo xirayaa waxa weeye waxaan u hambalyeeynaa shacabka Puntland gaar ahaan isimada biseelka ay muujiyeen midnimada ay ku dadaaleen dadkaasi in midnimadooda aan la sii kala dhantaalin waxay la tahay waxa weeye khayr badan Allah idin siiyo ilaahayna waxaan ka rajeynayaa waxa weeye in muxuu ahaytay ummadaas u noqotaan kuwii khayrka u horseedi lahaa annaguna anigu shakhsiyan waxaan diyaar u ahay inaan taageero qof kasta oo soo baxa oo ilaahay u qadiray inuu hoggaanka qabto waxaan rajeynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu noo dooro qofka noogu qiimaha badan ninka ilaahay uu noogu jecel yahay tawfiiqdan ilaahay inuu nagu waafajiyo ayaan rajeynayaa wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullah